start with the incident of 25th December 2014 when Al-Shabaab infiltrated Amisom Halan camp. isagoo ay reer fadhiyaan saraakiisha ciidamada militariga iyo kuwa booliiska Amisom ayuu saxaafadda u sheegay Maamun Sadiigu hogaamiyaha howlgalka Amisom in xarakada Al-Shabaab ay gudaha u galeen xarunta Xalane kadib weerarkii halkaasi ka dhacay 25kii bishii December sanadkii tagay. Start with the incident of 25th December 2014 when Al-Shabaab infiltrated Amisom Halan camp. That unfortunate incident is a reminder to us. aynu ku bilaawno dhacdadii 25kii December ka dhacday Xalane. nasiib daro dhacdadaasi waxay ahayd mid xusuus gaar leh sida ogtiin waxaan dagaal kula jirnaa xarakada Al-Shabaab marka loo fiiriyo khasaaraha waxa uu ahaa mid aad u culus. Al-Shabaab waxay sameeyeen wax kasto ay ku weerari karaan hay'adaha UN-ka iyo waliba Amisom. We do anything and everything to attract your attention and media headlines. Maamun Sadiigu hogaamiyaha midowga Afrika Amisom oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in sanadkii tagay 2014 ee midowga Afrika Amisom wax badan u qabsoomeen. waxa sidoo kale uu rajo wanaagsan ka muujiyay in Amisom ay dawladda Soomaaliya ka caawin doonto sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadda 2016. 2014 has been a very important year for Amisom, during which we reached some major milestones. sanadka 2014 waxay ahmiyad gaar u lahayd Amisom. waxyaabaha inoo qabsoomay waxaa ka mid ah shirarkii dib u heshiisiinta sida Kismaayo iyo waliba Baydhabo. Activities, the conferences in Kismaayo, in Baidoa, and the agreement signed between Puntland and the central government. Mr. Sadiigu mar uu ka warcelinayo weydiimaha warbaahinta ee ku aadan sababta keentay in la eedeeyo afyeenkii hore Amisom Colonel Ali Aadan Maxamed ayuu yiri. Now he is also to be rotated back to his country because they spent 1 year and they go. He is leaving, I think, on the 10th of this month. muddo hal sana ayuu halkan ku qaatay waxaana dib ugu laabanayaa dalkiisa 10ka bishan. waxaad ogaataan waxaan idin sheegaynaa inay yihiin wax annaga naga go'an. dadka way bixi karaan wayna imaan karaan dhammaan waana fududeeyaal. Let's not look at me or Colonel Ali. We're just individuals coming and going. Facilitate our work. ciidamada Amisom oo ka kooban wadamo isu tagay ayaa weerar iyo qaraxyo kala kulma xarakada Al-Shabaab oo diidan jiritaanka dawladda Soomaaliya iyo ku sii sugnaanshaha dalka ciidamada shisheeye. Aweys Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.